fadhigan oo gudoominaya gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Baashe Maxamed Faarax oo ay ka soo xaadireen 17 mudane ayaa waxa ku tartamay jagada gudoomiye ku-xigeenka koobaad tiraba 3 xildhibaan oo kala ah xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh xildhibaan Axmed Cabdi Kaahin iyo xildhibaan Xasan Hufane waxaana gudoomiye ku-xigeenka koobaad ku guuleystay xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh kadib markii uu aqlabiyada goluhu ay u codeeyeen waxaana natiijada codbixinta iyo codqaadista halkaasi kaga dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland mudane Baashe Maxamed Faarax murashaxa koowaad waxa weeye Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh inta uu codeynaysa gacanta ha taagto gacanta yaa la dejin saasa loo haynayaa gacanta hala toosha hala amso xildhibaan Axmed Cali Cabdi Kaahin inta uu codeynaysa gacanta ha taagto mudane Xasan Muuse Hufane inta uu codeynaysa gacanta ha taagto هل اسمعيستو waxaa fadhiya 17 xildhibaan konton xildhibaan waxay siiyeen Axmed konton waxay siisay Axmed xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh Axmed Cabdi Kaahin wuxuu hal cod buu helay mudane Xasan Muuse Hufane wuxuu helay 16 cod saddex xildhibaan waa museen gudoomiyuhu muu codeyn go'aanku waxa weeye Axmed Yaasiin inuu haystaago ka soo kaca geesta kalena xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaan leh oo jagadan buuxinteeda ku guuleystay ayaa u mahad celiyay mudanayaashii doortay iyo kuwii ka codeeyay waxaana uu sheegay in uu golaha dhex u ahaanayo sidoo kalena waxa uu mahad celiyay intii ka tanaasushay in ay la tartamaan xildhibaanka اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا يا حسن مهدنقينا waxaan mar labaad u mahadnaqayaa goloweynaha ii gartay iyadoo la iga mudan yahay anoo aninkii ugu yaraa rag iga aqoon badan oo iga waayaragsan oo iga mudani ay musharaxiin ahaayeen rag badan ay ii tanaasuleen aniga dartay golaha ii gartay iyaan u mahadnaqayaa waxaan walaalayaal idin ballan qaadayaa inaan idinku hogaamiyo anigoo shirgudoonka walaalahayeena la kaashanaya si daacadnimo ah oo danta diinta dalka iyo dadkuba ku jirto waxaan golaha hortiisa ka ballan qaadayaa inaan hogaaminta golaha ku wado si cadaalad ku jirto waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mudanayaashii ii tanaasulay ee xisbiga aan ka socday ee kulmiye ka tirsanaa waxa kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa bahweyntii xisbiga ee soo xushay si gaar ah iyagana ugu mahadnaqayaa waa maalin taariikhiya waa maalin 10 maalmood ee dulxijo kamid ah waa 5 dulxijo waa maalin barakaysan waxay anigana tahay taariikh gaar ah waxay cadeynaysaa sumcadda iyo qarannimada iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland taala waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahad celinayaa codka aad ii hibayseen inta iga codeysay iyo intii codeysay waan u mahadnaqayaa waana mahadsan